hortay meel yira garowjo tireema samaan waa meel aad u fog baan waxa arkay oo leeyahan waxa ku arkay farta cajiibka ah waxa leeyahay ku taala xamar tigidka goosan xamar baad ma ka birti bis gorow waxa soo baan halkaas yaxan ka barto ninka fartaas ay cajiibisay Nurdaan Duray magaalada Garowe ayuu uga yimid si uu u barto saxiixa magaciisa kadib markii uu baraha bulshada ka arkay iskuul ku yaala Muqdisho oo lagu barto saxiixa magaca qofka asigoo markaasi tikid soo goostay soona aaday magaalada Muqdisho kadibna raadiyay halka uu ku yaalo iskuulka lagu barto saxiixa magaca hadda wuxuu dhax fadhiyaa fasalka asigoo waqti aad u badan ku bixinaya sidoo magaciisa mar uu wax u saxiixi lahaay Nurdaan Duray ayaa aaminsan in haddii magaciisa wax aan ahayn uu wax ku saxiixo la koobigaray karo sidaasna hantidiisa uu ku weyn karo subax walba markii dadku ay shaqo iyo waxbarasho aadaan asugu wuxuu yimaadaa iskuulka asigoona waqtigiisa inta ugu badan geliya si mar uu magaciisa wax ugu saxiixin lahaa wuxuu noo sheegay in qorshihiisu yahay in dib markii uu ugu laabto magaalada Garowe oo ka furto iskuul lagu barto saxiixa magaca ugana faa'iideeyo dhalinyarada ku nool magaalada Garowe ee aan aqoonin sida wax loo saxiixo waa kana Nuur oo nooga sheekeynaya hayaankiisii uu yimid magaalada Garowe si uu magaalada Muqdisho ugu barto saxiixa magaciisa oo hadda uu ku hoolan yahay saxiixani oo waan barsaxa ma baran anu hadda bilow baan hay fartaas baa lay bilaabay farqurxinta waan ku soo dhawahay meetifigan maartay sida qurux badan oo soo booqday waxaan ku doortay oo baadaama meelo badan oo saxiixyada haatan marka hadda dhakhtar tagtay ama haatan bangi lacag ka saxiixinaysid hawlo badan buu ka caawinaya moogtahay saasaan ku bartay inaan macnaha meehan inaan saxiixa barto maatay hataan meel tago ka soo salaam bangi marka tagtay waxa la koonkaaga saxiixa lagu leeyahay marka saasaan ku doortay inaan wax saxiixsado oo maanta saxiixa barto marka saxiix adigu ku garna sidoo kale tusaale ahaan hadda markii hadda wax walba dhici kara social media hadda markii hadda xaas ilma ka xanuunsaday qof abla dhakhtar geysid saxiix baa lagu leeyahay saxiixi marka waa inaad wax saxiixan ka dhac marka saxiix adigu ku gaar inaad barto goor saxiixani gaar fursad weyn bay nool ahaanteeda iyo bulshadaba bay u tahay aniga ku bikri aad iyo aad hadda marka ilaa hami aad si leedahay fasalka inaad si joogto aad iyo hami waxaan ka sii leeyahay adigu hami tira badan ilaa dhowr faro kala duwan baa rabaa inaan barto su'aalahan meesha ku imaataan ku sheego anigu hortay meel yira garowjo tireema samaan waa meel aad u fog baan waxa arkay oo leeyahan waxa ku arkay farta cajiibka ah oo la baray kaasaan waxa yiri kaar ninkan amir liira xagee jooga saaliyan wuxuu degan yahay abaaro wax xagee ku taala abaaro waxa leeyahay ku taala xamar tigidka goosan xamar baad ma Garowe waxa uu soo baxday inaad halkan saxiixan ka barti bis Garowe waxa soo baan halkaas yaxan ka barto ninka fartaas ay cajiibisay ma fahant marka Garowe ina kula tamarto marka saxiix barti baa Garowe waxa rabaa inaan meel saarto marka aan ka farto oo aad iyo aad maxaa oo dadka saxiix barti saasaan oo waliba xataa waxa rabaa inaan bulshada xataa miyiga maan aan u sii faa'iideeyo waxa dhowr macluumaad kala duwan baa qabanaya insha Allah qofku in magaciisa uu wax ku saxiixan karo waxay ka caawinaysaa in qofku oo bangi wax dhigi karo wax kala bixi karo qandaraasi waaweyn uu gali karo iyo haddii uu yahay dhakhtar siyaasi iyo ganacsade intaba in saxiixiisa aan la koobigarayn keliyana magaciisa uu ku saxiixdo ayadoo haatan magaalada Muqdisho markii ugu horeysay laga furay ayadoo ay jiraan hadda dad badan oo isugu jira siyaasiyiin ganacsato aqoon-yahano aan aqoonin sida magacooda wax loogu saxiixo taasna ay ku qabaan dib weyn Farxaan Braali Hirish TV